ما سنت ugu horreyn baa waxa faahfaahin naga siisa taariikhda kala duwan calanka Soomaaliya laga soo bilaabo qarniyadii iyo boqortooyinkii xaruntooda ahayn magaalada Seylac iyo boqortooyadii Soomaaliyeed ka jirtay qarnigii 13aad ilaa kii 19aad aad iyo aad ayaad mahadsan tahay runtii waa taariikh dadkeena Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn Soomaaliya waxay leedahay taariikh aad hodana runtii waqtigii ku horreeyay markii uu soo galay gumaystuhu waxa ka jiray boqortooyooyin kala duwan diinta waqti macnaha diinta islaamka waqtiga ay soo gaartay Soomaaliya oo ilaa qarnigii 7aad waxa ka bilowday boqortooyooyin kala duwan waxaan xusi karnaa ugu horeysay boqortooyadii Ifaat oo runtii caasimadeedu ahayd magaalada Seylac boqortooyadaas waxa ka dambeeyay boqortooyadii la yiraahdo Cadaal iyo Ifaat waxay isticmaali jireen isku calan calankoodu wuxuu ahaa calan saddex nooca guduud iyo cadaan oo ay ku jirto bisha oo ka turjumaysa calaamada islaamka dhinacaas waxay dhinaca waqooyi boqortooyadaasi waxa dhinaca kale ka jira koonfurta boqortooyadii Ujuuraan oo lahayd calan saddex gees ah oo ah guduud iyo jaale ayaduna sidoo kale waxay lahaayeen calaamada dhexda uga jirta ee ah calaamada islaamka ee bisha ah boqortooyadaasi waxa dumiyay oo ama macna xilka kala wareegay boqortooyada la yiraahdo boqortooyada Hiraab ama waxa loo yaqaan Hiraab Imamites waxay talinayeen almost 200 sano ilaa inta u dhaxaysa Kismaayo iyo Hobyo waxa dhinaca kale ka jiray oo isla markaas ka jiray boqortooyada Galadi oo ayaduna baar dheere iyo waxa xaq ka talinaysay waxa sidoo kale jiray boqortooyada Majeerteen oo calankeeda gooniga ah calan guduud leh waxa sidoo kale jiray boqortooyada Warsangeli waxa jiray calankii daraawiishtu ay ku dagaalantay oo taariikhan marka laga sheekeynayo caalamka runtii ah astounding victory iyo macna defeatka astaan gobonimo iyo waxyaabihii uu sayidku sameeyay taariikhda waxa ku jirta Soomaaliya inay dawladii ugu horeysay Afrikaan ee diyaarada lagu weeraray waxaana ay ahayd ciidamadii sayidka waxa sidoo kale jira Cuthmaaniyiintii ama Turkiga oo runtii Soomaaliya taageero badan u fidisay military ahaan iyo diintooda inay faafiyaan oo ayaduna boqortooyada Seylac markii Cadaal ay ka wareegtay meeshii sii wadeen waxa kamid ah boqortooyada Warsangeliga oo leh calan ayagu u gooni ahaa oo ah calan cadaan iyo isku jira iyo qorraxdii soo baxaysa oo doon saaran boqortooyada Soomaaliya ka jira runtii waxaana qaracana maantay inaan boqortooyinkaas aanan Soomaalidu aysan waxba ka xusin inaan Soomaaliya inteeda badan aysan waxba ka aqoonin in la iloobay oo lagu iloobay markii gumaystiyaalkii ay yimaadeen ama soo weerareen wadankeena ay soo weerareen in wixii ka dambeeyay ama meeshay yimaadeen laga bilaabo taariikhdii ee wixii ka horeeyay maanta aan la xusin waa runtii wax qaracana waa wax Soomaali ay ku ah waa wax runtii laga fiican yahay waxaan u baahanahay inaan taariikhdeena dib ugu laabano oo aan xusno waxa aan nahay waxa aan proud ku nahay waxaan rabaa inaan ku daro boqortooyada Ujuuraan iyo boqortooyada Hiraab waxay lahaayeen lacag ayaga u gooniya waxay ahayd dawladihii ugu horeeyay boqortooyinka ugu horeeyay Afrika ee mint gareeyay ama samaystay lacag ayaga gooni ah lacagtaas waxa la jiray Muqdisho magaca Muqdisho wuxuu ka yimid lacagta waqtigaas la isticmaalay waqtiga ka talinay dahabkii ka ganacsi jireen gold tradingkay ku horeeyeen waxyaabo badan ay sameey jireen boqortooyadii waxa soo weeraray Portugiiska defeat gareeyeen oo iska difaaceen Oromada iska difaaceen si maxaa Cabdullaah Xasan taariikhda uu sameeyay wax hadii qofka Soomaaliga looga sheekeeyo waxa weeyaan waa wax runtii aad loogu farxo marka waxaas oo dhan waa ka gudubnay taariikhda Soomaaliya waxaad moodaa inay ka bilaabato markii uu gumaysto yimid waana runtii wax qaracana marka calamadii iyo boqortooyooyinkii ka jiray Soomaaliya waqtigii contactiga ay nala soo sameeyeen gumayst wadamadii sheeyna soo weeraray sida Ingiriiska Talyaaniga Faransiiska sidaas ay ahayd waxaad ka dhawaajisay in jireen boqortooyin hore oo ka horeeyay xilligii gumaystaha kala duwanaa Soomaaliya labadii gumaystaha sanacada ah awoodo noocee ah ay lahaayeen boqortooyadaasi sidoo kale muddo xileedkooda intuu gaarsiisnaa aad u mahadsantahay mar kale waa runtii waa su'aal muhiim oo loo baahan yahay dadku inay ogaadaan ugu horeyn boqortooyada aan dhahno boqortooyada Cadaal iyo boqortooyada Ifaat waxay laba boqortooyo oo isku caasimadooda magaalada Seylac iyo boqortooyada Turkiga Cuthmaaniyiinta oo ka sii dambeysay sii wada hesha waxay lahayn awood enormous very powerful waxay xukumi jireen meesha la yiraahdo hadda Djibouti meesha macnaha dhulka la yiraahdo Soomaalida Ethiopia Soomaalida waqooyi hadda loo yiraahdo waxay awood u yeesheen inay xataa Abyssinia ay boqortooyadeed ay xukumaan markaas oo boqorkii Ethiopiaanka ay ka qaadi jireen waxa la yiraahdo canshuur ay ka qaadi jireen marka waxay ahayn boqortooyo xoog badan waxayna ahaayeen waxyaabaha keentay in Soomaaliya markii ay yimaadeen wadamadiina soo gardaraystay
ay awood u yeelan waayeen in ay gumaystaan ama bedelaan dad badan ayaa aaminsan Soomaaliya in la gumaystay anigu ma aaminsani taariikhdaana sheegaysa in aan la gumaysan Soomaaliya dagaal ayaan ku soo qaaday waan iska difaacan dhinaca kale waxa ka jiray boqortooyada Ujuraan oo runtii boqortooyo u baahan in la xuso wax badanna macnaha soo qabatay boqortooyadaas waxay lahayd awood military oo fara badan waxay iska difaaceen ama ay laayeen markii Boortaqiisku uu soo weeraray waxay kala difaaceen Oromadii sidoo kale markii Oromadii ay soo weerareen wadankeena soo weerareen difaaceen waxay lahayn tradings ganacsi aad u heer sareeya oo macnaha dahabka waxyaabaha xariirta waxaas oo dhan adduunka u dhoofi jiray waxay lahayn lacagtooda ayagu goonido oo la yiraahdo Muqdisho boqortooyadaasi marka waxay aad boqortooyo ciidankeeda ama military powers-ka oo very powerful yahay waxaana military power-ka ahaa oo markii kala dambe kala wareega boqortooyadii oo iyagu boqortooyadii qaatay Hiraab Imamites ama Hiraab Sultanate صح Soomaaliya dabcan waan ka dhageysanaya magayga Soomaaliyeed gumaystihii ayaa ku soo duulay kadib calaamad gooni ayaa u sameeyay maxay ka turjumayeen calaamaanta uu gumaystuhu sameeyay Soomaaliya aad u mahadsantahay waxaan rabaa horta marka ugu horeysa bulshadeena Soomaaliyeed inay fahmaan ama ogaadaan gumaystuhu markuu yimid wuxuu u yimid ganacsi iyo inuu diinteena bedelo صح to commercial inay hantideena anaga qaataan at the same time in ay bedelaan Soomaaliya oo ay ka dhigaan Christians waxa taa tusaale u ah labadii calan ay la yimaadeen calanka Ingiriisku wuxuu leeyahay calankiisii la dhaho Union Jack صح Talyaanigu wuxuu leeyahay calankii markaas ay haysteen because Talyaanigu markaas wuxuu ahaa boqortooyo ah sidoo hadda ma uusan ahayn xitaa calanka ay waqtigaas lahaayeen ayagu hadda waa iska bedeleen okay waxay la yimaadeen oo ay samaysteen two coat of arms oo gooni u ah Somaliland iyo coat of arms oo gooni u ah Soomaalida Koonfureed Italian labadaas markii ay sameeyeen waxa markii muddo ay soo socotay waxa dhacday in calankii Soomaaliya la siinay uu noqday calan dhinac walba markaad fiirsid shabeelkii ha ahaado calaamadii xidigta ha ahaato calankii ha ahaato caleenta meesha ku taal ha ahaato calaamadii Kiristaanka oo kor ku jirto oo calankii Talyaaniga laga soo minguuriyo ha ahaato everywhere there is nothing oo sheega macnaha banaanka ka ah markaad fiiriso calankeena maanta aan haysano iyo calaamadeena maanta aan haysano everything and I say everything wax walbaahi waxay ka yimaadeen astaantii coat of arms oo Talyaanigu uu sameeyay Soomaaliya tii Ingiriiska dhinaca la iska dhig waxaan rabaa taas inaan ku sii daro dad Soomaaliya ayaa jiro oo wali aysan ka dhaadhicin calankan in Talyaani sameeyay oo aaminsan waxa sameeyay nin la yiraahdo Cawaalin la yiraahdo sameeyay SYL sameeyay waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo laba arrimo midda koowaad waxaan isbarbar dhigno Soomaaliya waxay Talyaanigu wuxuu gubaysanayay Liibiya iyo Soomaaliya Liibiya markaas waxa ka jiray waxay laba dawladood Cyrenaica iyo Tripolitania Cyrenaica Tripolitania iyo Soomaali koonfurta Soomaaliyeed calamadii ama coat of armskii ay u sameeyeen marka isbarbar dhigtid they are exactly same isku mid weyn mid walba wuxuu dhexda ku wataa calanka buluuga oo maanta Soomaaliya ay wadato marka ma dhihi karna Cawaale wuxuu ahaa Liibiyan isla markaasna Soomaali u ahaa ma dhihi karno macquul ma taariikhda diidaysa haddii uu Cawaale calankan uu sameeyay way calankan buluuga ay uga muuqdaa coat of arms oo loo sameeyay Tripolitania ama coat of arms oo loo sameeyay Talyaanigu u sameeyay Cyrenaica labada wadan oo hadda maanta Liibiya ay ka kooban tahay macquul ma taasi waxay si toos u diidaysaa waxay si toos uga soo horjeedaa taariikhda loo qoray oo calankan buluuga anaga alifnay saddexdooda marka isbarbar dhigtid they exactly the same mid walba waxa ku jira calankii buluuga ah oo xidigta leh ayaa ku jira calankaasina wuxuu ahaa calan ay isticmaali jireen monarchist Italian boqortooyadii Talyaaniga ayaa calanka isticmaali si gooni u isticmaali jirtay macnaha buluuga oo xidigta leh wuxuu ka yimid ayaga taariikhda haddana waxay sheegaysaa macnaha coat of arms oo loo sameeyo Soomaalida Koonfureed waxaa la bedelay markii la go'aansaday Soomaalida Koonfureed iyo Soomaalida Waqooyi in la isku daro waxaa loo sameeyay new coat of arms oo ka bilaabanaya 1936 haddii taariikhdu waxay tusaysaa markaas exactly isaga calanku inuu ka soo dhax baxay oo calankii buluuga isaga soo dhax baxay calankaas buluuga wuxuu ku jiraa sidoo kale to coat of arms oo loo sameeyay Tripolitania wuxuu ku jiraa coat of arms oo Talyaanigu uu sameeyay waxa la dhaho wadanka la yiraahdo Cyrenaica labadaas wadan oo hadda isku ah Liibiya isku ah marka calankeena Soomaaliya exactly waa calankii uu Talyaanigu noo sameeyay macquul ma noqon karto taariikhda iyo marka fiirisid marka research la sameeyo macquul ma noqon karto calanka Soomaaliya in uu alifay qof kale because taariikhda diidaysa صح
lama dhihi karo ninka la yiraahdo cawaale liibiyaan waa hadduu liibiyaan ahaa oo cawaale labada wadan buu isku ahaa waxaan u baahanahay inaan ogaano laakiin Liibiya Tripolitania iyo Cyrenaica waxa ku jira calankii buluuga ah ee Soomaaliya ku dhex jira at the same time kii Soomaaliya marka isbarbardhig saddexdoodu waa isku egyihiin waa isleegihiin so that is why calankeenu uu yahay calan uu noo sameeyo gumaystihii calankeenu uu yahay calan la ku qiyaamay waxaan u jeednaa oo kale calaamadda Kirishtaanku meeshii ay ka soo baxday oo ahayd calanka Talyaanigu uu ku gumaysanayay wadamada uu asagu gumaysto oo dhan ayuu ka soo dhex saaray waxayna ku jirtaa meesha ugu sareysa astaanteena Soomaaliya marka taariikhda calanka Soomaaliya ee maanta aan haysano waa sidaas okay inta badan calanka Soomaaliya iyo sidoo kale astaantiisa dadku waxay isweydiinayaan ama sida caadiga dadku aaminsan inay u taagan yihiin waxyaabo muqaddisaad oo ay kamid tahay xorriyadda Soomaaliya iyo sidoo kale midnimada Soomaaliya ama ay tahay ba ashaacir gooni ah maxay macnaha ka turjumayaan astaanta Soomaaliya iyo sidoo kale calanka Soomaaliya well calanka Soomaaliya maanta aan haysanahay runtii marka aad weydiisid Soomaalida ama qof Soomaaliya weydiisid oo tiraahdo muxuu calanka ku turjumayaa waxay ku leeyihiin waa cirko kale well cirka waa nala leeyahay anaga kaliyan ma leeyahay معناه وما فرس قفك الصومالي ودني كدق ما يسوي إن عالم كاو يركو يجي أستامو وحلو بهاي عالم مركز دولة سمسان وحلو بهاي أستامو كترجمية ودنك أستامو كترجمية ودني نمذا أستامو كترجمية رقنك أستامو كترجمية دين تينا أستامو كترجمية تاريخ تين waxay ahayd 1960kii marka la leeyahay xorriyaha la qaatay aniga ma aaminsan in lagu meystay marka aan ku celiyo markaas in dib loogu laabto oo calamadii jiri jiray boqortooyooyinkii jiri jiray calamadoodii wax laga soo qaato sida adduunka dhan uu sameeyay Talyaanigu markii ama Liibiya markii Talyaanigu ka tagay 1950kii oo boqor Idris uu la wareegay calan cusub uu sameeyay wixii Talyaaniga uu sameeyo dhan coronavirus wuxuu dilma waa la qubay calan cusub uu sameeyay ayaga laftirkoodu markii dagaalka labada adduunka lagu jabiyay Talyaaniga laftirkoodu calankii qaybtii Kirishtaanka iyo Kroonkii macnaha boqortooyada boqorkii waa ka bixiyay marka anaga waxay ahayd waqtigaas in dib loogu laabtay aan dhaho marka mid kale qofka Soomaaliga maanta markaad weydiisid waxa jirta laba ciladood cilada koowaad horta maba ku tadaburaanba maba yaqaanaanba qof maanta Soomaaliya intaas aan ku jirnay researchiga ilaa 1900 ilaa 2001 oo researchiga ku jirnay ma ana arkin qof Soomaaliya runtii oo si fiican ama u baaray ama u yaqaana astaamaha Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya wuxuu yahay ma ana arkin hadda waqtigan xaadirka ah oo barnaamijkii banaanka aan soo dhignay oo idaacadaha iyo social media lagala socdo marka qof aan tusno ma aha qofka markaas ku baraarugaya ku leeyahay weligay ma aan arkin because ma fiirinaba marka waxa uu uga taagan yahay dadka Soomaalida waa uun calaamad Soomaali leenahay oo dadku ay jecel yihiin because waxa loo sheegay in Soomaali ay sameysay laakiin macna kale oo la kugu fasiri karo ama qof Soomaali maanta uu dhihi karo anaga iska leh ma jiro shabeelku wuxuu ka yimid coronavirus-kii oo Talyaanigu ka yimid crownku wuxuu ka yimid ayagu ka yimid calanku ayagu ka yimid xataa calaamadda gaashaanka ay u samaysan tahay waa Talyaaniga keenay marka anaga wax aan leenahay ma baahan inta badan bulshooyinka kala duwan ee caalamka calaamaanteeda waxa lagu muujiyay waxyaabo ama resource ah oo dalkooda yaalo kamid ah waxyaabaha lagu garan og yahay su'aalahan dal walba astaantiisa ka muuqata waa astaan dalkaasi leeyahay dabcan Soomaaliya astaanta ka muuqata waa laba shabeel labada shabeel iyagu xagee ka yimaadeen aad iyo aad ma santahay labada shabeel runtii horta aan dhaho dadka Soomaalida aan u sheego waxa kaliya ee maanta ama astaanta ha ahaato ama calanka ha ahaatee ay Soomaaliya ku soo dartay waa labada waran ee hoostaala astaanta bis inta kaleeto for all of it kulligeed waxay ka timid coronavirus-kii iyo calamadii Talyaanigu noo sameeyay evidence-giina waa wax cado qof diidi kara ma laha taariikhdii yaa cad mid wuxuu ku ekaa 1936 mid kale la sameeyay midkii kale la sameeyay waa taariikhdu ku yaala history-gu ku yaala marka saad u sheegtaba runtii caalamka calankoodii istaantooda coronavirus waxa la yiraahdo waxay ka turjumaan dhaqanka diinta waxay ka turjumaan khayraadka ay haystaan waxay ka turjumaan geographically meesha ay ku yaalaan waxay ka turjumaan waxyaabaha ay caanka ku yihiin annaga waxaas oo dhan ma laha calanka Soomaaliya waa buluug cirku eegay cirku uu eegyahay maxay macnaa oo qof Soomaaliya oo wadani u sameynaysa ma wadani ma ina siinaysa ma diinta ina ka hadlaysaa ma waxay ka hadlaysaa wax kale oo anagu aan leenahay ma jirto coronavirus-keena markaa fiirsid laba shabeel ku taalo oo aad sheegtay weydiisay labada shabeel anaga shabeel si gooniya caan ugu manin
shabeel waddankeena waa joogaa leopard waa joogtaa waddankeena laakiin waddankeena waxaa ka badan geela oon caan ku nahay waxyaabaha runtii very famous Soomaaliya ku tahay geela ka mid geelna lakuma dhigin waxyaabaha caan ku nahay waxaa ka mid a xoolaha la dhoofiyo kuma taalo waxyaabaha caan ku nahay waxaa ka mid a xeeb aad u dheer oo aad u qurux badan oo resources fara badan iyo ay ku jiraan natural resources fara badan ay ku jiraan laguma soo dhigin so waxaa fahmi kartaa waxaan annaga inaanaan samayn waxaa taas ka sii daran oo runtii qaracana calankeena waxaa ku taala hal xidig xidigta ku taala markii naloo fasirayay waxaana lakugu fasiray shantii gees waxay u taagan tahay shanta Soomaaliya shanta gobol ee Soomaaliya macnaha waxaad fahmaysaa halkaas inaan xataa faqri ka nahay fikirka macnaha faqri inaan fikir ka nahay how is it possible siday suurtagal ku tahay in xidigtii shanteeda gees aan siino why not shan xidigood because SYL calaamadeeda maanta markaa fiiris waxaa ku taala shan xidigooda ku taala calaamadda SYL calaamadda SYL shanta xidigooda ku taala waxa ay u yihiin calaamad ama astaan u yihiin shanta Soomaali ayagu dreamkii macnaha shantii Soomaaliya oo ahayd Djibouti Hargeysa Muqdisho Soomaalida Ethiopia Soomaalida Kenya ayagu marka macnaha way ka fakreen saas laakiin waxaad moodaa xatana macnaha dadka waxa la yaabaa su'aasha in is weydiiyaan war waxa la yiri SYL samaysa calanka